ayadoo caalamka uu ka jiray walwalkii la xiriiray dagaalkii ka dhashay waddanka Ukraine iyo Ruushka oo dhaqaalaha iyo shidaalka saameyn ku yeeshay ayaa hadda waxaa laga walwalayaa in uu dagaal cusub ka bilowdo bariga waddanka Shiinaha oo dhex maro Mareykanka iyo waddanka Shiinaha ayagoo isku haysta waddanka Taiwan. waxaa muuqata waddanka Taiwan inuu xulufo dhow leeyahay waddanka Mareykanka. afhayeenka waddanka Mareykanka aqal Nancy Pelosi ayaa dalbatay inay booqasho dalkaasi ku tagto. waddanka Shiinahana waa ay diideen, hase ahaatee si qarsoodi ayay ku tagtay. taas ayaa walwal abuurtay iyo in waddanka Shiinaha uu bilaabo dhoolatus military. waxaan laga baqayaa in arrintaasi ay dhab noqoto oo dagaal isu bedesho maadaama dhoolatuska uu waddanka Shiinaha isticmaalayo. sidoo kale khubarada caalamka arrimaha xiriirka caalamka kulligood walwal ayay arrintan ka qabaan. marka waxa weeye ilaahay ha yasiro. dagaalka Ukraine ayaa dhibkiisa haddeertaan iyo saameyntiisa weyn tahay. dagaal kale caalamka ma qaadi karo oo laga yaabo inuu isu bedelo dagaalkii saddexaad ee caalamka oo saameyn ku yeesha bariga galbeedka, bariga dhexe iyo Afrika dhammaan. waxaana laga yaabaa haddaan arrintaasi xal loo helin inay dhibaato weyn keento, maadaama badeecadaha la keeno waddanka Soomaaliya intooda badan uu waddanka Shiinaha ka yimaado sida caalamka intiisa kale. ayaa haddii dagaalkaasi u dhaco waxaa istaagaya badeecadaha Soomaaliya laga isticmaalo ama badeecadaha soo socda ama badeecadaha dalban. waxaa sidoo kale saameynta kale ay Soomaalidu ku yeelanayso waxa weeye lacagta waddankan laga isticmaalo waxa weeye dollar. haddii dowladdii ugu weyneyd Mareykanka iyo lacagtii dollarka ahayd haddii uu dagaal dhaco dhaqaalaha adduunka ayay saameynaysaa. waxaa laga yaabaa dollarka inuu aada hoos u dhaco, taana ay keento khasaare xag maaliyadeed iyo xag dhaqaalaha. marka waxaa loo baahan yahay dadka inay ka feejignoodaan lana socdaan waxa caalamka ka socda. walwalkaana waxaa qaba dadka khabiirada ah ee waddanka Shiinaha oo uu ka mid yahay qoraaga weyn tafatira journaalka la yiraahdo Global Times ee waddanka Shiinaha ka